qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan barwaaqo gaarne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب مركل كسو دوالة مقالة تحنها أها aan halkan kusoo bandhigi jirnay kuna saabsanaa maadada ingiliiska gaar ahaan grade-ka 8aad muuqaalkan wuxuu noqon doonaa midkii u dambeeyay ee aan kaga hadleyno ama quseeyo unitka 2aad sidoo kale marka loo fiiriyo muuqaaladii hore wuxuu noqon doonaa part 27 ama qaybtii 27aad ee taxanaha ingiliiska wuxuu ku saabsan yahay marka G proverbs oo aan ka muuqaalkan ki korreey ku soo bilaabnay G proverbs marka waxay ku yaalaan page-ka 27aad waxay dhahaysaa marka sida kuwii horeba read the following wisdoms aqri murtiyada soo socda and tell sheegna the meaning micnaha each one is caring ay mid walba ximbaarsan tahay with the help your teacher adigoo kaashanaysid macalinkaaga mahmaada koowaad marka waxay dhahaysaa ama wisdomka koowaad a bad cook kareexun also has xitaa wuxuu ku leeyahay his share of food qaybtiisa cuntada xun ayuu ku leeyahay waa marka loo aqriyo meel ahaan ama loo isticmaalo in kariyahaasi uu yahay male ama lab laakiin haddii female tahay waxaan isticmaalaynaa meesha his ka isticmaalnay ayaa markaan waxaa ka isticmaalaynaa haar a bad cook karisa xun also has xitaa waxay ku leedahay her share of food cuntada qaybteeda xun marka waa micnayn doonaa mid walba mid ayaa u micnayn doonaa aan isla fiirin marka okay haddii aan bilaabno marka mid ugu horeyso waxay dhahaysaa a bad cook also has his share of food ama a bad cook waa marka female laga dhigo a bad cook also has her share of food oo micnaheeda noqonayso a bad cook kariyo xun also has xitaa wuxuu ku leeyahay his share of food qaybtiisa cuntada xun waa marka male laga dhigo ama lab laga dhigo haddii laakiin female laga dhigo waxay noqonaysaa a bad cook kariso xun also has xitaa waxay ku leedahay her share of food qaybteeda cuntada xun ayay ku leedahay marka meaningka muxuu yahay marka waxaan dhahaynaa anyone qof walba who commence ee bilaabo a bad deed camal xun or a good deed ama camal wanaagsan has wuxuu ku leeyahay his share qaybtiisa ayuu ku leeyahay oo uu ku leeyahay with others dadka kale okay marka haddii qof camal fiican uu bilaabidaas camalka uu bilaabay wuxuu ku leeyahay ajir sidaas kale dadka asaga ku daysadeen qayb ayuu kaga leeyahay oo half ka mid ah oo ajir ah ayuu ku leeyahay cagsigana waa sidaas haddii camal xun uu bilaabo camalkaas xun uu bilaabay dambigeedu uu leeyahay dadka ku daysadeenna half ka mid ah dambigooda asaga qoorta loo saari doonaa marka anyone qof walba who commence ee bilaabo a bad deed camal xun or a good deed ama camal wanaagsan haas wuxuu ku leeyahay his share qaybtiisa camal xumida ah with others dadka kale ayuu ku leeyahay oo dambiyada qayb ka mid ah asaga qoorta loo saara ama lagu xisaabina sidaas oo kale haddii laakiin dhidig ay tahay female waxaan dhihi karnaa anyone who commence qof walbo bilaabo a bad deed camal xun or a good deed ama camal wanaagsan haas waxay ku leedahay her share qaybteeda camal wanaaga ama qaybteeda camal xumida with others dadka kale ayay ku leedahay oo haddii camal wanaagsan bilowday dadka kale ayada ku daysadeen ajir ayay ku leedahay haddii camal xun ay bilowdayna
dadka kale camalkan ka daba sameeyeyna waxay ku leedahay qaybteeda dembiga ah. marka waa waxaad bilaabtidba adigana ay ku saameynayaan, dadka kale ee adiga kugu daysadana saameyn ay ku yeelanaysaa. waxaas ha noqdaan wax guud ah ama ha noqdaan wax aan guud ahayn. Proverb-ka ama mahmaahda ku xigto waxay dhahaysaa life is like an exam I am determined to pass. Life nolosha is like an exam, waa sida imtixaan oo kale. I am determined, waxaan go'aansaday maadaama nolosha imtixaan ay tahay, to pass, in aan imtixaankaasi nolosha ay qaadaysa aan ku baaso ama aan ka gudbo. marka life is like an exam, nolosha waa sida imtixaan oo kale. I am determined, waxaan go'aansaday, to pass, in aan imtixaankaasi ku baaso ama aan ka gudbo. meaningka muxuu yahay marka? waxaan dhihi karnaa life nolosha is an exam, waa imtixaan. I will be, waxaan ahaan doonaa, tolerate, mid ugu dulqaato ama ugu adkaysto, it is examination, imtixaankeeda. marka life is an exam, I will be tolerate, it is examination. life is an exam, nolosha waa imtixaan, I will be tolerate, waan ugu dulqaadan doonaa, it is examination, imtixaankeeda. Proverb-ka ku xigo wuxuu leeyahay the goal of education, ujeedada waxbarashada is to replace, waa in la bedelo, an empty mind, maskax eber ah loona bedelo, with an open mind, maskax furan oo waxbarata. meaningka muxuu yahay marka? the objective of education, hadafka ama ujeedada waxbarashada, is removing mind, waa in maskaxda laga saaro, from the darkness, mugdiga, lana geeyo ama loo saaro, to the brightness, iftiinka. marka the objective of education, hadafka waxbarashada, is removing mind, waa ka saaridda maskaxda, from the darkness, mugdiga, to the brightness, iftiinka in loo saaro. marka min adhulumaati ila nuuri ayay noqonaysaa, in mugda laga soo saaro maskaxda, iftiinna la geeyo ama wax maxaa dhahay la baro, ayaa waxay tahay the goal or the objective of education. Proverb-ka ku sii xiga, every exam is a step on the ladder of your life. Every exam, imtixaan walba, is a step, waa tilaabo, on the ladder, ee jaranjarada of your life ee noloshaada. imtixaan walba oo ku soo maro waa tilaabo ka mid ah jaranjarada noloshaada. marka every exam, imtixaan walba, is a step, waa tilaabo ka mid ah, on the ladder, jaranjarada of your life ee noloshaada. marka meaningka muxuu noqonaa? every exam, imtixaan walba, you face it, aad wajahdo, is an experience, wuxuu khibrad u yahay for your life noloshaada. imtixaan walba oo aad wajahdo wuxuu khibrad ama experience u yahay noloshaada. marka every exam, imtixaan walba, you face it, aad wajahdo, is an experience, wuxuu khibrad u yahay for your life noloshaada. next waxaa ku sii xigto knowledge, aqoonta, is a beautiful thing, waa shay qurux badan, that can fill us, oo annaga naga buuxin karo, with happiness, farxad. marka knowledge, aqoonta, is a beautiful thing, waa shay qurux badan, that can fill us, oo naga buuxin kara annaga, with happiness, farxad. meaningka muxuu yahay marka? knowledge, aqoonta, is a beautiful, way qurux badan tahay, and we feel, waxaana dareennaa, happiness, farxad, when we learn, markii aan barano, something shay ama wax markaan barano, we didn't know before, aanan hore u aqoonin. marka wax aan hore u aqoonin markaan barano,
we feel happiness waxaan dareennaa farxad marka knowledge aqoonta is a beautiful way qurux badan tahay and we feel waxaana dareennaa happiness farxad when we learn markii aan barano something shay markaan barano ama wax markaan barano we didn't know aanan u garanaynin before hore we didn't know before aanan hore u garanaynin marka waxaan hore u garanaynin markaan barano we feel happiness waxaan dareennaa farxad the next waxaa ku sii xiga the last ka u dambeeyo wuxuu leeyahay we all knew dhammaan anaga waan ogeyn the exam imtixaanka we were going aan rabnay to sit in aan u fadhiisano this week isbuucan marka we all knew dhammaan waa ogeyn the exam imtixaanka we were going aan rabnay to sit inaan u fadhiisano this week isbuucan ama inaan galno isbuucan marka meaningka muxuu noqonayaa isagana an obvious sentence jumlo cad does not need uma baahno explanation sharaxaad an obvious sentence jumlo cad oo clear ah oo waadix ah does not need uma baahno explanation sharaxaad uma baahno waxay ka dhigan tahay sadar muuqdo su'aal ka dhan in imtixaankaas aan galayno ee aan isbuucan u fadhiisanayno we all knew dhammaanteen waa ogeyn marka wax qarsan oo daah saaran ma ahayn wuxuu ahaa wax muuqdo oo su'aal ka dhan marka halkaas ayay ku dhammaadeen borofebyadii ama wisdomskii laga rabay inaa u hesho sharaxaad ama meaning halkaasayna kusoo dhammaadeen next waxaan aadi doonaa unitka kale ee ku xiga unit 2 halkaas ayuu kusoo gabagaboobay next video wuxuu noqon doonaa in aan wax ka dhahno unit 3 inaan bilaabno halkaas kusoo gabagabeynaa haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato waxaan kaa dalbanaynaa inaad nagu soo biirto aad subscribe dhahto haddii hore subscribe kugu heedna inaad muuqaalka like saarto sharna garayso si asxaab fara badan muuqaalka uu u gaaro waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu